waxaan ku dhashay gobolka Mudug taariikhda miilaadiga aan dhashay مثلا waxyaalaha aad iyo aad runtii igu naxdinta badnaa laba arimood ayaan hadda ii soo degdegahay waan xasuustaa mid waxay ahayd wayna soo laalaabataa midaasi aad baan uga naxaa waxaan aad ugu arkaa magaalada Muqdisho salaadii maqribka la gaaray baabuurtu zaxmad bay ku jiraan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الله ينبركيه عمر دير يا عفاد الله ينسيه ولا لا شيء قريي أما الله اكتساره إلهي وحنا قبرين إنه الجنة جيو دم بجودة دم بوردكود بودافو وبرامجكي عن قبرتين قيرجها سؤالها سفيرك وآلابا أين كسوق بجرني علماء الصوماليات هاد بشيقي إنه صورة جلا وبرامج عن قبرانينه تاريخ علماء الصوماليات ملك استأذون كجوجان كوا marti noogu noqda Kenya ee Kenya noogu yimaada iyo kuwa aan ku soo qabanno online-ka intaba waxaan ka codsanayaa inaad sii sheegareysaan si culimada Soomaaliyeed guud ahaan ba loogu soo duceeyo in cimri dheer iyo caafimaad Ilaahay uu siiyo ana laag saartaan iidanka alle maanta waxaa farxad iyo sharaf inoo ah inuu marti inoogu yahay barnaamijkeena su'aalaha safiirka sheekh in badan aad wada garanaysaan شيخ خير مقدشة واو تقانان وشيخ محمد معلن أبشر شيخنا وحنا كوسو دويننا مركز السفير كإسلام كميديا سودو مرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم الله كبرك شيخنا بلشة الصومالية سيكورو يكون تقانا أو شيخ معنا الشيخ محمد معلن أبشر أدبر لو قرنية لكن تاريخ هذا بلشة إني برتان آدي أباهيهين أرض هذه أنا بلشة جودهم بسوشيال ميديا كهذا صعوته إن تاريخ هذا أوجادان aad bay ugu baahan yihiin marka soo dhawo taariikhdaada wax inooga taabo alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala ثانيا mashruucan khayriga ah culummada in wax laga ogaado ah marka hore runtii aad baan uga cudur daaranayaa inay jiraan mashaayikh waaweyn oo iga mudan in taariikhdooda waraysigooda ayaga laga dhigo laakiin min baabi tanbiih haddaan wax yar un ka tilmaano alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan aniga magacaygu waa maxamed macalin abshir cilmi guuleed waxaan ku dhashay gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo baadiyaheeda taariikhda miilaadiga aan dhashay 74 taqriiban daama miyigaas dadku baadiyaha ay ku dhasheen in badan oo kamid ah wax badan la qorin laakiin waxay ku qiyaasan tahay 73 ilaa 74 meelahaas ayay ku qiyaasan tahay الله كبرك شيخنا وما سنتهي عمر دير عفاد الله كسيو waxaan rabnaa kale inaan noogu sii dartid dabcan علمي بعد برتي كسر بلاو إلى دكتور قرآن كاجي معلمتي سوماليد علماء سوماليد أو كسر برتي هذا هل إلى وين نوجش يكتو الحمد لله معلمينتي وحبر الشذا يجوه الرئيسي أباهي معلم أبشر أباهي إلهي سبحانه وتعالى هو نحرس رحمة واسعة مدان ديرين بودنتي معلم كي قرآن كأسجاها سجانا إبلابي يندميي wax kamida culumta fiqhiga sida safiinaha oo kalena isaga ayaa ii akhriyay mashaayikh kale baa jirtay kuwa gobolka Mudug ahaa iyo kuwa markii aan Muqdisho imid waqtigii aan dhalinyaro aan oo ah Muqdisho u soo wareegay aan magaalada Muqdisho kaga faa'iideystay iyo kuwa kale oo siyaabo kala duwan aan uga faa'iideystay alxamdulillaah way ahaayeen kuwa badan waa dhinteen kuwana waa nool yihiin ilaahay subxaanahu watacaala maqaamkooda ha weyneeyo dembigoodna allah dhaafo dubay anigu markaan imaaraadka iyo markaan joognay dadku waxay iska ahaayeen dad oo mataqaana aimo masaajida iyo khutaba ayaan ahayn alxamdulillaah meel waxay ahayd caam oo mashaayikh badan ay joogto kuwa Soomaaliyeed oo jooga oo aan ka faa'iideysanay
ama ha ahaato wax ku saabsan xagga qiraa'aadka ama ha ahaato wax ku saabsan culum kale oo sharciga iyo luqadda iyo ku saabsan, iyo kuwo carab ah oo ayaguna meesha joogay oo runtii iyaguna qofkii didaalahaya uu ka faa'iidaysan karay. intaba alxamdulilaah waan la kulanay, waxna waan ka faa'iidaystay alxamdulilah. waa mahadsanta sheekhana allah ku barakeeyo. waxaan ugu maqaalo ah inaad jaamacadda yaman aada online-ka ka baranaysay oo jaamacadda culuum technolojiya inay taan u malaynayo aada ka baranaysay, ayna igu maqaalo tahay inaad sheekh abubakar xasan maali allah xifdiyo iyo sheekh xasan xabeeb wadaadka la yidhaahdo inaad isku mid ahaydeen oo isku meel wax ka baraysay, isku fasal aada haydeen. marka bal naga dabagey arrimahaasi. jaamacaddaasi way jirtay, jaamacatu culuum technolojiya oo waddanka yaman xilli bay waxay ka samaysay, ilaa hadda way jirtaa, magaalada muqdisho ay keentay farac ka mid ah furuucdeeda. dadkii culummadii markaas joogayna in badanoo ka mid ihi waa dhigteen. annagu weliba imaaraadkan ka imaan jirnay, xilliga imtixaankaan u imaan jirnay oo kaga qayb geli jirnay. jaamacatu culuum technolojiya raggaas aad sheegtay iyo rag fara badan oo culummo ah ayaa ka wada baxay, iyo kuwo siyaasiyiin oo magaalada hadda caanka ah waddanka. raggaas waxaan ka garanahayaa cabdikariin xuseen guuleed iyo rag kale oo ka mid ahaba ka baxay. xilligaasna dadku jaamacadana waddankaas umaysan jirin, fursad bayna ahayd raggu dadku runtii aada uga faa'iidaysanahayeen. anugu xagga imaaraadka aniga iyo mashaayikh kale xaggaan ka imaan jirnay oo waa dhigan jirnay, waana dhammaysanay. laakiin runtii shahaadooyinka la qaatay iyo wixii laga faa'iidaystay waxaa ka badan oo kana nacfi badnaa xalaqaadka cilmiga ah oo mashaayikhda iyo madaaristooda iyo xalaqaadkooda iyo masaajidda dadka ugu tagay oo ka faa'iidaystay ayaa annaga wax badan runtii noogana faa'iido badnaa, noogana fara badnaa. weliba shahaadooyinkaas markii la qaatay ba aniga igu dambeysay. shahaadadaas maantaan qaatay ma garanayo meelay aada runtii. marka halkaas min baabi tanbiih dadku qofku shahaado inuu macno u yeelo oo ayaga uu mataqaana raadiyo oo juhdi dheer uu geliyo ma ahan muhiimadu. muhiimaddu waxa weeyaan culumta uu awoodo inuu xasiliyo, inuu barto, ama masjidka ha ka barto, ama madarasada ha ka barto, ama macadka ha ka barto, kadibna uu ka shaqeeyo siduu culumtan u gudbin lahaa. maaha inuu shahaadooyin intuu qaato uu isdur saaro master iyo PhD iyo shahaado mataqaan baccalaureate iyo oo halkan ay khaanada ku jiraan uu yiraahdo waxaan ahay jaamici doctora mataqaan master baan haystaa. wixii uu yaqaanay iyo wuxuu faa'iideystay ay yar tahay, masna laga yaabo inaysan bulshadaba uusan la wadaagin. marka muhiimad weyn oo ay si leedahay waxaan isleeyahay ma jirto. allah ku barkay ustaadi. waxaa jirta markuu qofka cilmi baranayo, tusaale ahaan dugsiyadii macalimiintii waxbarashadii haddaa dib kugu celsho, waxaa jirta qofka wax dhibay oo uu yacni suurad dhibtay. tusaale ahaan dhib macnaha waxaan kala jeedaa oo yacni qabo waayey oo carabkiisa qabo weysay, ama uu macalinka oo ku garaacay uu fahankiisa uu ku cuslaatay. marka ma jirtaa meel kitaabka qur-aanka ku dhibtay ama yacni kitaabada aada raacaysa meel yacni carabkaaga dhibi jirta ma jirtaa? wallaahi alxamdulilaahi waa iska laga yaabaa wax badan inay jiraan, laakiin xasuustaydu way ku yartaa. laakiin waxaan xasuusanahay annagoo dhalinyaro ah oo xamar joogna oo tajwiidka markaas barana, subac baa la geli jiray madaraso macalin cabdiraxmaan cabdullaahi bare uu macalinka ahaa baan subac usoo aadi jiray. marka subaca raggu waa xufaad bay ahayn, qur-aanka dhan baa lagu geli jiray. daaha shishadiisa waxaa fadhisay gabar ayadana qur-aanka taqaana. waagaas marka waxaan xasuustaa waan dhalinyaraan ahaa. aayadda haddaa garan weydid waxaa kaa qaadanaya qofka kugu xiga. marka daahu saatan oo kale markuu yahay, aniga haddaan garan waayo qofka igu xigo iga qaadanaya waa gabadha. suuratu saad wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrضa wamaa baynahumaa baطila, aayadaasaa igu soo aaday waa garan waaye. 2 jeer 3 jeer markii laigu celiyey aayaddii ka horreyso aan keeni waayey baa gabadhii waxaa lagu yidhi ka qaado. gabadhii baa iga qaadatay.
raggii da-aadayda ahaa oo dhallinyarada ahaa aad bay iigu qosleen aniga waxay ii ahayd maalinkaas murug weyn bay ii ahayd runtii kabacdii muddo dheer markaan xasuustaba waa daqnanahayay aayaddaas marka ma iloobo markaan marahayo waxaan soo xasuustaa qisadii laftigeeda haddaan akhrinahayo maalinkii baan soo xasuustaa meeshii aan fadhiyey gabadhii iga qaadatay sidii dhallinyaradu igu qosleen xasuus bay runtii ii noqotay weyna jiraan aayado kaloo adag laakiin aan aad u xasuusnayn oo mararka qaarkood yuusiikumullaahu iyo walakum nisfu iyo aayadahaasoo kale markii la gelahayo subaca aad baan uga cabsan jiray inaan mataqaana markaan yaraa bilowga hore ahayd ustaadii su-aalahayni ugu dambeeya la soo gaadhay waxaa jirta markii cashir aada akrinaynin ama aada yani ka aada mashquulka kasoo yaro baxdo firaaqooyina kugu soo baxa marka firaaqooyinkaas kugu soo baxa maxaad ku buuxisaa adoo soo koobaya markaan firaaqa haysto waxaan jeclahay runtii haddaan kitaab haysto kitaabka inaan akhriyo waana kutubta cilmiga ah waxaan jeclahay jaalis markaan helo inaan daalacdo kutubtaas haddaanan taas ku mashquulsanayn waxaan jeclahay inaan ka shaqeeyo wax maslaxad caama ah oo dacwo ah hebel inaan soo booqdo jiran inaan kelimad khayra qof u sheego in qof la caawinayo wax la aruuriyo dan caam ah inaan ka shaqeeyaan aad iyo aad runtii u jeclahay allah ku barakeeyo waa mahadsan tahay su-aasha inoogu dambaysa sheekhana waqtigaana siisa waa kaaga mahad celinaynaa waxaa jirta intaad adduunka joogtay intaad wax baranaysay intaad kitaabo akrinaysay intaad adigu kitaabo baranaysay intaad ummad ag fadhiisay arday kuu ahayd ama arday adigu aad la ahayd wax isla baranayseen ama intaad safar ku jirtay oo socdaal aad ku jirtay waxaa jira waxyaaba kugu soo maray noloshaada oo ta'siir kugu yeeshay oo la yaab kugu noqday waxyaaba aad la yaabta aad aragtay iyo waxyaaba ku farxad geliya soo dhawo sheekhana runtii aniga waxaan jeclahay waxyaalaha ama aan ku farxo aada ugu farxay ama aada ii murug geliyey oo naxdinta leh inaan ka dhigo wax caam ah oo aysan noqon wax shakhsiya nafteeda u laabanaya maalan waxyaalaha aada iyo aada runtii igu naxdinta badnaa laba arrimood ayaan hadda iisoo degdegahay waan xasuustaa mid waxay ahayd wayna soo laalaabataa middaasi aad baan uga naxaa safarada markaan galno oo aan diyaarad raaco ama baabuurkuna baabuur caama uu yahay weliba diyaaradda aad hadda waayahan dambe iigu badan diyaaradda markii la gaaro xilligii salaada oo diyaaradda salaaddii maalan waxay kacday salaaddii subxiga wax yar ka hor bay kacday iyadoo hawada ku jirtaa baa salaaddii subxiga u dhalatay salaada subxigu ma aqbali karta in la dibdhigo waxaan fiiriyaa bulshada diyaaradda saaran ee soomaalida ah bal wax tukanaya waxaan arkaa haddaa u bato qof ama labo inta kale maadaama diyaaraddii ay saaran yihiin salaaddii subxiga ay tahay waxaa moodaa inay iska leeyihiin waagaad degtaan soo qalleeya diyaaradda xaaladdaas hawada qofkaasi uu ku jiro oo calaa khatar uu ku sugan yahay salaaddii la rabay inay salaadi siday kuu qabataa loo tukadaade uusan sinaba oga tegin ayaa waxaa arkaysaa bulshadii dhammayd oo rag iyo dumar leh oo iska sheekaysanaya oo wax iska cuncunahaya oo iska faraxsan oo diyaaraddii hawada ku jirto oo salaaddii qof tukanaya uunan ka muuqan baabuurta basaska ah ayagana safarka markay ku jiraan sidoo kale salaaddii baa la gaaraya waxaan aad ugu arkaa magaalada muqdisho salaaddii maqribkaa la gaaray baabuurtu zaxmad bay ku jiraan baskan dadku ay raaceen ma gaarayo meeshii u socday dadku ay u socdeen cishaha koor uusa gaarin baa laga yaabaa zaxmaddaa uu ku jiro dhammaan dadka halkaa jooga waxaa laga yaabaa inaan laga helin qof ama labo mooyaane wax ka badan oo tukanayo haddii ay dabcaan inay yidhaahdaan baska noo jooji waxaa laga yaaba inuu ka diido meeshii munaasabaddu ay ahayd marka hadduu ka diido intay ka degaan oo xaafadaha u dhow ay ku tukadaan dumarka weliba si gaar ah raggu masaajidoo kale u dhow bay aadi karaan inay hadhowta mid labaad lacag ka bixiyaan oo ay raacaan si aysan salaadoodu aysan u dayacmin ayadana waxay iga tahay markaan arka runtii aad iyo aad baan uga daqnadaa oo uga naxaa arrinka kale oo labaad oo iisoo degdegaya waxa weeye dadka fahamkooda
weliba dadka reer miyiga siduu u hooseeyo iyo deegaanada weliba anigu aan garanayo aad u faraha badan khuraafaadka iyo bidaacda iyo meesha ay gaareen waxaan garanayaa xilli abaari dhacday oo dhowr sano ka hor ahaa abaar aad u baahan baa dhacday dadka xoolihii baa ka baaba'ay aniga iyo rag kale oo culummo ah baan waxaan marnay tuulooyin fara badan si dadka loogu gurmado dadka marka waxa uu raadinta iyo gurmashada iyo biyo dhaaminta ka sokow waxaan wacyi gelinaynay war dadku inay ilaahay u toobad keenaan istighaafa bighayri illah iska daayaan ilaahay ay baryaan roob doon ay sameeyaan ayaan la hadlay meel tuulaha waxaan weydiinay su'aal war miyaynan roob doonin roob doon miyaynan samaynin nin reer baadiye ah oo aan isleeyahay da'diisu aad bay u weyn tahay ayaa wuxuu yidhi roob doon maxaa dhacay qabri aanan teginba male qabri aanan tegin oo aanan dul istaaginba male aad iyo aad baan uga daqnay horta uga naxay in ninka da'daasii uu u fahmo roobka meesha laga raadinayo inay ahaato markii abaartu ay dhacdo in quburaha loo qayshado oo qabriga la aado oo roob laga raadiyo fahamka noocaas oo khatarta ku ah diinta islaamka ayadana waxay ahayd waxyaalihii aad iyo aad iga nixiyey waxa aan ku farxaay khayrka aad bay u fara badan yihiin runtii waagii igu horreysay oo kacbada aan tago waxaa iga horreeyey anoo dhalinyaro ah oo muqdisho jooga oo taqriiban 20 sano meelahaas aan gaarin baan waxaan aad u jeclaa inaan kacbada arko oo ay ii suurtoodo yowmama cumro ama xaj inaan ku tago anoo aad arrintaa u jecel baan habeenno badan ku riyooday anoo kacbada jooga taqriiban 95 markay ahayd ba ii suurto gashay inaan xaj ka tago magaalada madiina habeenkii aan galay waqti dambe ahayd markaan arkay minaaradaha masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aan soo xasuustay rawdadii oo aan soo xasuustay qubuurihii baqiic qubuurihii qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka nabiga oo fadliga looga leh markii aan soo xasuustay Uhud markii aan tagay magaalada Kacbada aan arkay shawqi iyo hilowgi iyo farxadii aan dareemay waxaan isleeyahay mid lamidii inay soo martay aad bay u yarta maxaa yeelay wixii intaas aan raadinayay oo aan ku riyoonayay oo aan tamanninayay oo aan maanta dul istaagay farxad aad iyo aad u weynin badan ayay ahayd farxadaha kale oo khayrka ah ilaahay noo barakay subhanahu wa ta'ala aad u badan yihiin laakiin taasi xasuus gooni ah bay ilahayd الله كبركيو عمر ديري عافاد الله كسيو وكاغا مهد علينينا وقتي غالي نو سو هورتي برنامجka aad nagala qayb gashay intaas ayaan jeclaanay barnaamijkeena qaaska ahaa ee su'aalaha safiirka oo maanta marti inoogu ahaa Sheekh Maxamed Macalin Abshir intaas ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno intaan dib dambe isaga imaan doono wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh